marka koowaad waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka reer Jubbaland aniga maanta ay doortay walaalada waa og tahay oo Jubbaland maanta runtii marxaladda ay ku jirto waxay u baahan tahay qof aniga oo kaleeta oo badbaadiye marka waxaan u arkay marxaladaas maanta inay taagan tahay waxyaalaha igu kalifay muddo dheer aan u helmayey waxay ahayd isbedel caafimaad qaba Jubbaland inay hesho waan rajaynayaa maanta inay heshay laakiin cid ku dooratay ma aha baarlamaankii rasmiga ahaa ee guddiga doorashooyinka Jubbaland soo xuleen shacabka aad leedahay waan u mahadnaqayaayo iyaga ay doortayna meel ay joogeen ma jiro laakiin dadku taageersan baa meel isugu yimid sideed ku noqon kartaa hogaamiye la doortay oo sharciya markaa walaalaha waxaan kuu sheegayaa waa su'aal fiican baarlamaanka Jubbaland ay leedahay oo la isku waafaqsan yahay ma jiro haddii aad ka wadid kuwii shalay madaxweynaha ee doortay ninka la yiraahdo saaxiibka Sheekh Axmed Maxamed Islaam dad waxay asagu u keensaday ma ahayn waxaan isku waafaqsanahay ahayn kuwan marka haddii aad sidaa u dhigto waxay iyaguna kuwa kale oo noocaas oo kaleeta ah marka la helo Jubbaland oo meel la isugu keeno marka wax la wada xusho ayay imaan kartaa su'aashaas marka waxaan leeyahay oo aan ugu hambaliyeynayaa dhammaan dadka reer Jubbaland ee taageerayaasha iyo kuwa farabadan adduunka dacaladiisa jooga in aan maanta ku faraxsanahay shaqadii ay igmadeen nimankiinii ka soo horjeeday Axmed Madoobe ee ku eedeynayay inuu maroorsaday nidaamkii meesha ka jiray iyo hanaankii doorashadu qudhiinii baa sii kala firdhay haddana oo xidig baa isna shalay yidhi waxa la ii doortay madaxweyne adiguna waa adigan maanta yidhi madaxweynea la ii cumaamaday miyaanay taasi muuqanayn markiina horeba qolada mucaaridku inaad fawdown u socoteen aydan sulux doonayn waxay la tahay saaxiib way jirtaa xidig waa iska dabeeci dabeecadda basarka waxa weeye marka waxyaalahan kale ay jiraan in qofba marka aragtidiisa uu qaato oo wax iska dabeeciya weeye annagu fawdo umaana soconin waxaanu rabnay Jubbaland waxbaa ka khaldamay wixii ka khaldamayna wuxuu ahaa boroseska Jubbaland ee ummadana ay u wada timid oo runtii inta dad gooni ay xideen annagu de meel aan ka dhexgal la'aan weynay oo muddo badan aan ka qaylinaynay ay natiijadiisii waa sida noqotay marka annagu waxaanu ku talagalnay markii hore runtii maysan ahayn laakiin waxay noqotay masalo lagama maarmaana haddiiba aad marka hore doonayseen wanaag oo aad tirsanayseen in laydinka maroorsaday hanaankii xalkuma wuxuu ku jiraa inuu nin waliba meel isku cumaamadu yidhaahdo aniga madaxweynaha maxalkaad sidaa u aragtaan waxa weeye saaxiib xalku wuxuu ku imaan doonaa sida ay ummadda Jubbaland isla qaadato oo runtii natiijadeedina way ilaan doontaa anigu hadda kuma lihi in qof kasta inta meel gooni ay istaago madaxweynaan ahay runtii wax xal lagu gaarayana ma aha laakiin wax kasta wuxuu leeyahay meel uu ka khaldamo haddii ay wax khaldamaan khaladaadka way ka daba yimaadaan waxaa qabaa marka waxaa khaldamay waxa weeye boroseska Jubbaland ee ummadani u wada timid ee la wada rabay ayaa dad gooniya intay meel gooniya gashadeen bay wax gooniya ku suubiyeen marka wax gooniya ka soo baxay ay natiijadiisii marka siday noqotay marka Cabdinaasir adiguna waxaad leedahay maadaama wax khaldameen wixii u toosinta ahaa waa inay sidayda noqoto anigana la ii doorto marka qalad ku sax ma waxba hagaajinaysaa waxba qalad laguma saxayo adeer qalad kuma nasixin waxa weeyaan bini aadamku markaas wixii asagu u arkaa inay xal tahay wuu sameeyaa aniguna midaasaan sameeyey umana arko runtii wax ama fawdo ah ama khalad uma arkee waxaan u arkaa bulsho fara badan oo dal iyo dibadda joogto oo aniga maaragtay muddo fara badan aan maaragtay wax u sheegayey in maanta ay sidan ku faraxsan yihiin oo ku qanacsan yihiin hal marka anugu marka labadii nin ee shalay midba meesha lagu doortay waxaad u aragtaa gebi ahaanba inay khaldanaayeen ood adigu tahay ka keliya quman xaqana u leh inuu dadka hogaamiye miya adeer waxay la tahay nimankaas iyaga la weydiinayaa qaabka ay isu doorteen iyo waxay maaragtay iyaga la weydiinayaa waxaan ogahay nimankaasu inay is doorteen oo aan media kala socdaa